halkan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aad uga dhageysanaysaan. maanta oo maalin talaada ah taariikhda miilaaduguna tahay 31 bisha May ee 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 24 bisha 8 ee Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. shalay oo maalin isniin ahayd ayaa waxa magaalada Siloobi ka dhacay qarax ay dad badan ku baaba'een ayna sidoo kale ku dhaawacmeen dad ay ka mid ahaayeen saraakiisha amniga ee wadankaasi. qaraxani ka dhacay magaalada Siloobi ayaa ay warar ku sheegayaan in ay ku dhinteen 40 ruux sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad intaasi ka badan oo ay ku jireen qaar ka mid ah ciidanka amniga ee wadankaasi. magaalada Siloobi ayaa inta badan ka dhacan rabshado noocan oo kala ah ayadoona qaraxani looga shaki yahay inay ka dambayso kooxda BKK oo ah koox hubeysan ee wadankaasi ka jirta ayadoona ay wali aysan sheegin inay ka dambayso qaraxani. kuuriyada waqooyi ayaa tijaabo ku samaysay nooc ka mid ah gantaaladeedii ayadoona ay ku guuldareysatay waxa ayna wararku sheegayaan in gantaalka ay tijaabada ku sameynaysay uu ku qarxay goobtii laga tuurayay. wararka ka soo baxaya gantaalkani oo ay kuuriyada waqooyi tijaabo ku sameynaysay ayaa sheegaya in dowladda Japan ay heegan buuxa gelisay ciidankeedii kadib markii ay ogaatay in kuuriyada waqooyi ay sameynayso tijaabo gantaal. tijaabooyinka ay sameynayso kuuriyada waqooyi ayaa inta badan waxa ay ka samaysaa badda u dhaxaysa labada dal ee Japan iyo kuuriyada waqooyi. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya mid ka mid ah saraakiisha kuuriyada koonfureed oo sheegay in gantaalka ay doonaysay kuuriyada waqooyi inay tijaabiso uu ahaa gantaal ciladaysna. xukuumadda uu hogaamiyo Pyongyang ayaa inta badan tijaabooyin ku samaysa hubkeedii culus ayadoona marbo marka ka dambaysa horumarinaysa hubkeedii nuclearka. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. magaalada Idlib oo ku taala wadanka Syria oo duqeymo dhanka arka ah loo geystay ayadoo ay halkaasi ku baaba'een dad badan. wararka ka soo baxaya magaaladaasi ayaa sheegaya in 10 gantaal lagu garaacay magaaladaasi waxaana ilaa iyo hadda aan si sax ah loo sheegin cida ka dambaysa duqeymahaasi loo geystay magaalada Idlib ayadoo ay jiraan warar sheegaya in duqeymahaasi ay geysteen diyaaradaha Ruushka ayaan ilaa iyo hadda aan war ka soo saarin duqeymahaasi loo geystay magaaladaasi. wararka ayaa ku soo waramaya in duqeymahaasi ay ku dhinteen dad tiradoodii lagu qiyaasay inay gaarayaan 14 ruux ayadoona aan wali la xaqiijin. waxa ayna sidoo kale wararku sheegayaan in duqeymahaasi ay ku burbureen isbitaalo ku yaalay magaaladaasi. boqor Salmaan oo ah boqorka boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan sidii adeeg wanaagsan loogu qaban lahaa dadka cimraysanaya oo ka kala yimid daafaha caalamka. boqor Salmaan ayaa sidoo kale sheegay in ay sugayaan ammaanka dadka cimraysanaya si ay cimradoodii u gutaan si nabad ah asigoona sheegay in ay arintani tahay waajibaad saaran. waxaad wali nagala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Iran ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadayaan faragelinta military ee ay ka wadaan wadanka Suuriya ayagoona sheegay in ay doonayaan in magaalada Halab oo dhan ay ka xoreeyaan mucaaradka wadankaasi ee ka soo horjeeda Bashar al-Assad.
ugu yaraan 17 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dab qabsaday xarun ay lahaayeen ciidanka Hindiya sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 19 qof mas'uul ka tirsan ciidanka booliska wadankaasi ayaa sheegaya in dadka dhaawaca soo gaaray aysan dhaawacoodii ahayn dhaawac halis ah asagoo sheegay in ay ku guuleysteen in ay damiyaan dabka qabsaday goobtaasi ayaa ay wararku sheegayaan in isla markiiba ay gaareen kooxaha dabdamiska wadankaasi ayagoona muddo kadib ay ku guuleysteen daminta dabkaasi wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya shaqaalaha tareenada ee wadanka Faransiiska ayaa diiday in ay shaqeeyaan ayagoo sheegay in ay doonayaan in dawladda Faransiiska ay ka laabato go'aanadii ay horay u soo saartay ee ku aadanaa isbeddelka shaqaalaha wadankaasi madaxweynaha Faransiiska ayaa isna sidoo kale sheegay in aysan dawladdiisii marna ka laaban doonin go'aanadii ka soo baxay asagoo sheegay in isbeddelka shaqaalaha laga sameeyay wadankaasi ahmiyadiisii ay tahay sidii loo heli lahaa hanaanka shaqo qorida maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa wadanka Faransiiska ka socday dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday isbeddelkaasi ay dawladda wadankaasi ku sameysay shaqaalaha ninka ugu da'da weyn ee wadanka Urdun oo lagu magacaabo Alxaaj Jaafar Salaama ayaa geeriyooday waxa ayna wararku sheegayeen in ninkani da ahaan uu gaarayay 110 sano ninkani ayaa ku dhashay magaalada Mooxi sanadkii 1906 wararka ayaa sheegaya in ninkani faraciisi uu gaaray 150 qof sidoo kale waxa hadda nool walaalkiisii oo isna gaaray da ahaan 108 sano Jaafar Salaama ayaa shaqadiisii ahayd waxa uuna geeriyooday asagoo caafimaadkiisii aad u wanaagsan mid ka mid ah ehelada ninkani ayaa warbaahinta u sheegay in ninkani uusan cuni jirin raashinka wadanka dibadiisii laga keenay asigoona sheegay in uu cuni jiray oo kaliya cuntada wadankiisii lagu sameeyo waxa uuna sheegay in ninkani uu uga sheekeyn jiray mar waliba taariikhii hore ee uu asiga xilligaasi noolaa waxaana intaas inoogu dhamaaday warkii saacadlaha oo aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya ciduu dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bss-somalia.com